Somaliland ayaa har iyo habeen dadaal dheeraad ugu jirta sidii muwaadiniinta reer Somaliland ay u heli lahaayeen daryeel caafimaad oo tayo sare leh goob kasta iyo goor kastana la heli karo. Si taasi loo helo, dawladdu waxay si joogto ah uga maalgelisaa cashuurta muwaadiniintu bixiyaan goobaha caafimaadka iyadoo la dhiso xarumaha daryeelka ee hooyada iyo dhallaanka ama MCH-yada, cisbitaallo cusub iyo iyada oo dhismayaal dheeraada lagu kordhinayo isla markaana dayactir joogto ah lagu samaynayo goobaha hooyada iyo dhallaanka iyo cisbitaallada hore u jiray. dhanka kale waxay aad ugu dadaashay wasaaradda caafimaadku in dhammaan goobaha caafimaadku ay helaan qalab tayo sare leh iyadoo aad xoogga loo saaray sidii loo heli lahaa shaybaadho casriya oo tayo sare leh. dhanka kale waxaa si joogto ah goobaha caafimaadka ee dawladda loogu howlgeliyaa shaqaale aqoon sare u leh adeegga caafimaad ee ay muwaadiniinta siinayaan. waxayna taa barbar socota oo aan joogsi lahayn tababarrada la siiyo shaqaalaha caafimaadka. taas waxay keentay inay kor u kacaan aaminaadda ay dadweynuhu ku qabaan goobaha caafimaadka ee dawladda iyagoo ka helaya daryeel caafimaad oo heerkiisu aad u sarreeyo iyo soo dhoweyn wanaagsan, la macaamil aad u sarreeya iyo deegaan wacan oo qofka xanuunsanaya iyo dadka wadaaba ay ku ildoogsadaan. shaqaalaha caafimaadka ee dawladda ayaa har iyo habeen siiya daryeel caafimaad oo aad u sarreeya dadweynaha yimaada cisbitaallada dawladda. waa kuwan qaar ka mid ah shaqaalaha oo arrintaasi nooga warbixinaya. magacaygu waa Sacdiye Suldaan Sheekh Yuusuf, waxaan ka shaqeeyaa dhakhtarka weyne magaalada Burco, gaar ahaan qaybta shaybaarka. sida imika wada arkayseen shaqadeedu way socotaa. maalin walba waxaan u shaqeynaa dad tiro badan oo ku nool magaalada Burco ama nawaaxigeeda. mar walba iyo goor walba waxaan diyaar u nahay inaan u shaqeyno bulshadayada iyo dadkayaga si habsami leh. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. وسينا محمد موسى waxaan ka shaqeeyaa halkan halka dadka markay soo umulaan ee ku soo dhalaan halka kan saarada ku soo dhalaan halka la keeno iyo qolada wali garanaysaa operation ka ah la soo saaro ee laga keeno OT-gan alla dhigo. marka halkan waa post baa la yiraahdaa, waa post-gii weyn ama maxay halkii dumarka markay soo dhalaan ama hal la qalo ama ha dhalaan waarkii la keenay. imka hadaan imaadno gabadha tan waxay noo timi xalay toole, haday xalay noo timi shaqaalaha heeg caafimaadka halkan jooga aad iyo aad bay ugu shaqeeyeen. qof kasta oo yimaadana sida ayaa heegan loogu yahay oo lagu shaqeynaya. si fiican waa nagu adeegnaa. alaabta inta faraha badan leh waxa soo siiyo cisbitaalka ay ka helaan, laakiin dadka inta badan waxay ku dhalaan free bay ku wada dhalaan inta badan. iyadii ilmaheedu alxamdulillah way caafimaad qabaan, inkastoo ilmuhu maxay ka siriray markii hore ka siriray oo la geeyay qaybta neonatalka, mar la sii qaaday mar la soo qaaday oo la keenay halkan hooyada lagu keenay. waxay haystaa daryeel caafimaad oo joogto ah bay haysataa oo aniga ma garanaysaa idee si fiican loogu adeegayo. aad arkaysaan idinku si fiican loogu adeegayo oo markasta qofka laga socdo xaaladiisa kii ilmaha yar iyo kii hooyada labadaba. waa kuwanayana shaqaalaha caafimaadka ee goobaha hooyada iyo dhallaanka oo ka warbixinaya siday adeegga caafimaad ugu fidiyaan dadka soo booqanaya. beeshinada noo yimaado bishii aan u shaqeyno marka la isku wada daro all sections oo dhan waxay gaaraan 2,000 iyo abaf. dawladu iyo maxay toolayeen iyo adeegga loo qabanayo bilaash baa lagu qabtaa. marka alxamdulillah adeeg wanaagsan bana adigu bulshada aan u qabanaa. dadweynaha hooyooyinka iyo dhallaankaba adeegan u qabano iyagoo ku faraxsan bay naga baxaan. waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda caafimaadka maadaama ay naga saacideen dawooyinkii iyo maxay toolayeen agabkii caafimaadka oo dhan. waxaan leenahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin. dadweyne aad u fara badan ayaa maalin kasta, wiig kasta iyo bil kasta adeeg caafimaad oo tayo sare loogu fidiyaa goobaha cisbitaallada iyo xarumaha caafimaadka ee dawladda iyadoo dhammaan dadka danyarta ah ay ka helaan adeeg caafimaad oo bilaash ah. waa tan hooyo ka mid ah dadweynaha adeeggaasi caafimaad loo fidiyey oo inooga warramaysa sida loogu adeegay. magacaygu waa Shamis Xuseen. waxaa laga soo qaaday meel miyiga halkan ka durugsan, halkan ayaa la keenay. shaqaale fiican baan ka helay, waa la ii shaqeeyey. hadday tahay qaliinkii, hadday tahay dawooyinkii, hadday tahay
intaba si aad iyo aad baa laygu shaqeeya anankana waa laga shaqeeyaa dee aad iyo aadna waan idinku mahadcelinaya. waxaa iyana la sii tayeeyey oo kor loo qaaday adeega caafimaad ee cisbitaallada waddanka jamhuuriyadda somalilan u diyaariyeen hooyada uurka leh, hooyada umulaysa iyo ilmaha dhalanayaba. waxaa si weyn loo diyaariyey qalabkii iyo shaqaalihii daryeeli lahaa ilmaha ku soo dhasha isagoo aan sidkiisu aanu dhammaan ama dhicisa, iyo sidoo kale ilmaha soo dhasha isagoo gargaar caafimaad u baahan ama xanuunsanayaba. waa kan maamulaha cisbitaalka Burco oo isaguna inooga warbixinaya horumarka ay sameeyeen iyo sida ay dadka ugu adeegaanba. adeegyada cisbitaalku bixiya runtii way kala duwan yihiin. waxaa ka mid ah adeegyada bukaan socodada kala duwan sida carruurta, dumarka. waxaa ka mid ah adeegyada qaliinada kala duwan, qaliinada guud. waxaa ka mid ah waxa weeyaan qaybaha maaragtay umulaha, qaliinada hooyada uurka leh, qaybta emergency ama gargaarka degdega ah oo maaragtay adeegyada oo dhan ay ka fulaan, qaybaha maaragtay safaynta keliyaha, qaybaha maaragtay waararka maaragtay medicalka ama cudurrada guud oo rag iyo dumarba leh, qaybaha waararka carruurta, qaybaha maaragtay dhicisyada ama daryeelka carruurta da'doodu yar tahay runtii, iyo waxa weeyaan waarar maaragtay xukuumaddu hirgelisay sanadii ugu dambeeyey oo ahaa markaa waararka VIP roomska loo yaqaano runtii oo cisbitaalka aad iyo aad ugu baahnaa dhowrkii sano u dambeeyna maaragtay bukaanada loogu adeegayay si maaragtay standard. cisbitaalka waxyaabaha kaluu leeyahay runtii waxaa ka mid ah shaqaalo fiican isugu jira markaa dhakhaatiir kuwa ajnabiya iyo kuwa maaragtay waddanka u dhashay oo waddanka wax ku bartay iyo kuwa waddanka u dhashay dowladda wax ku bartay. wuxuu leeyahay markaa shaqaalo caafimaad oo ay ka mid yihiin markaa kalkaaliyayaasha, shaybaadhisayaasha iyo maaragtay technicianska kala duwan ee caafimaadka runtii oo dhammaantood si fiican waxay adeegga u fuliya ama uga qayb galaan. waalidiinta ubadkooda loogu fidiyey adeegga caafimaad cisbitaallada dawladda ayaa iyana ka mahad celiyey adeegga caafimaad ee ay ka heleen cisbitaallada dawladda. magacaygu waa axmed maxamuud axmed. sabtidii baan dhakhtarka imi, yarkaygoo guriga ku hor ciyaaray baa dhagax buu ku kufay, halkaas suxulkuu ka jabay, markaa suxulkii dhinac buu u baadhay, markaa qalin yaroo iska fudud bii sameeyey. alxamdulilah maantaan sawirnay inankii waa kaban yahay, waa xidhiidhsan yahay, gacantiisina si fiican bay u xidhiidhsan tahay. ruum gooniyana waana la siiyo brivasiyo toiletkiisii gudaha ku leh. adeegu waa fiican yahay. dhakhtarku neerasku si wacan bay noogu shaqaynayaan. dhakhtarkii qalinkii u sameeyey saacad buu uga soo warhelayaa, neeraskuna way noo imanayaan. dhakhtarkii kale qaabilsanaa carruurta beriatrigini wuu noo imanayaa, xumadiisii kale iyo caafimaadkiisii kale jeegaraynayaan. alxamdulilah rabbilcaalamiin si wacan baa laygu shaqeeyey. waa mahadsan yihiin shaqaalaha dhakhtarku, agaasimuhuna waa mahadsan yihiin. adeegga caafimaad ee ay bixiyaan cisbitaallada iyo xarumaha caafimaad ee dawladdu maamusho ayaa sanadba sanadka ka sii dambeeya sii wanaagsanaanayay, islamarkaana ay kor u sii kacayaan muwaadiniinta adeeg caafimaad ee bilaashkaa loogu fulinayo iyadoo laga maalgelinayo cashuurta muwaadinka. waa kan mar kale maamulaha dhakhtarka guud ee Burco oo arrintaasi nooga warramaya. runtii adeegyadaas maaragtay faraha badan leh iyo waxa weeyaan dhismayaashaas iyo waxa weeyaan qalabada kala duwan runtii sanadihii u dambeeyay hospitaalka lagu soo kordhinayay waxa weeyaan runtii qaybta ugu weyn maaragtay qaadatay wasaaradda maaliyadda maaragtay dawladda oo weliba maaragtay ay tahay cashuurtii dadweynuhu bixiyeen oo inta si la soo ururiyey kadib markaa meelihii bulshada loogu adeegayo runtii baahiyooda wax lagaga qabtay. wasaaradda caafimaadka oo markaa line ministrigeyga ayaa iyadna markaa maalin kasta ama si joogta runtii cisbitaalka taageeradiisa haday noqoto maaragtay dawooyinka, haday noqoto qalabada kala duwan caafimaadka wixii la helaya hadba aan iyana runtii nagala hagran. taas runtii aad baan uga mahad celinaa dawladda in cisbitaalka waxtarka faraha badan ay soo kordhiyeen, iyadana maaragtay waxtarkaas cisbitaalka sumcadiisii iyo wax soo saarkiisiiba runtii inta wax ka bedelay oo kor u qaaday. wuxuu kaloo kor u qaaday markaa aaminaadii beeshinada maaragtay ama bukaanku cisbitaalku aaminayay. markaa taasina runtii waa mid aad looga mahad celinayo. baahiduna runtii mar walba way taagan tahay. xukuumadda iyo dawladdana waxaan rajaynaynaa in maaragtay dawladda baahida inay sii labalaabi doonaan maalin maanta ka dambeysa doolar ka dhigo, maadaama baahidu ay maaragtay joogto tahay oo aan ahayn wax dhammaanaya. marka runtii aad baan uga mahad celinaa wasaaradda maaliyadda iyo cid kasta oo ku howlan maaragtay ururinta iyo isu keenida cashuurta si maaragtay wixii macno u sameeyo oo community ama bulshadii uu u gaaro. halkana markaa waa tusaale ugu fiican aan arki karro oo ah in maaragtay waxqabadkii maaragtay cashuurta uu dadkii markaa u soo gaadhay. aad iyo aad noogu mahadsan yahay runtii. dawladda Somaliland waxay mar kasta ka go'an
inay muwaadiniinta u diyaariso adeeg caafimaad oo tayo sare leh bilaash ah oo dalka oo dhan lagu fidiyo iyadoo laga maalgelinayo cashuurta muwaadiniintu ay bixiyaan.